qurux waa mid ka mid ah ereyada qeexitaankooda ku adkaada aqoon-yahanada iyo saynisyahanada. waa erey dhinac loo raaca la garanayn, welina haatan looma hayo qeexitaan sax ah. xataa haddaad adigaagan isweydiiso, laga yaabo inaad dhinac u qaato aad garan weydo. haddaba waxaan soo qaadan doonaa aragtiyo iyo xikmado kala duwan oo ay dhaheen aqoon-yahano kala duwan iyo saynisyahano. waxaana ka mid ah, shay kasta wuu qurux badan yahay, laakiin qof kastaa ma arko. nafta taasoo aragta quruxda laga yaabo mararka qaar inuu keli socdo. awoodda ugu weyne caalamku waa dhalinyarada iyo quruxda gabadha. dhaqan wanaagga, heerka dhiiranaanta, anshaxa, geesinimada iyo daacadnimadu waxay wax weyn ka qaban karaan si ay gabadha uga dhigaan mid qurux badan. hantida ugu weyn ee gabadhi leedahay waa quruxdeeda. nin kasta wadnihiisa waxaa dareemo qarsoon, kaasoo ka jawaaba gariirada quruxda. quruxdeydii iyo dhallinyarnimadeydii waxaan siiyey ragga, waxaanan doonayaa xikmadahayga iyo khibradahayga inaan siiyo xayawaanada. quruxda waa shay kastoo ku siiya raaxo. qalbigeenu wuxuu la sarqaamaa quruxda, indhaheennuna ma arki karaan. quruxda dhabtahay waa inaad hal qof run u sheegto, taasina waxay kaa dhigi inaad dareento wax fiican. jacaylku waa quruxda nafta. qurux bilaa fikri waa caajis. qurux bilaa bilici waa jillaab bilaa cunta. markaan ka shaqaynayo dhibaatooyinka, kama fikiro qurux. markaan dhammeeyo, haddaanay xalku qurux badnayn, ayaan gartaa inay qalad tahay. xikmaddu waxay taabataa wixii tegay, balse quruxdu waa ballanqaadka mustaqbalka.